kulan lagaga hadlayo sidii loo qiimeyn lahaa ballanqaadyadii siyaasadeed ee golayaasha deegaanada Burco, Oodweyne, Caynaba iyo Sheekh, iyo waliba doorka ay dhalinyarada iyo haweenku ay ku lahayd doorashadii golayaasha deegaanka ee dalka ka qabsoontay ayaa maanta lagu qabtay magaalada Burco ee gobolka Togdheer. kulankan oo ay ka qayb qaadanayeen in ka badan 50 xubnood oo ka mid ah golayaasha deegaanada degmooyinkaasi iyo waliba xubno ka mid ah dhalinyarada Togdheer oo ay dhaqangelisay hay'adda wadaniga ah ee Hafayoko ayaa waxaan nuxurkiisu yahay inay dhalinyarada iyo haweenka lagu dhiirigeliyo hanka siyaasadeed ee doorashooyinka soo socda iyo in la qiimeeyo horumarka waxqabad ee ay sameeyeen dhalinyaradu kuwii ku guuleystay doorashadii qabsootay ee golayaasha deegaanka. duqa Burco Maxamed Yuusuf Cabdi Muraad oo maanta furay kulankaasi ayaa waxa uu daboolka ka qaaday in horumarka ay ka sameeyeen dhinaca siyaasadda dhalinyaradu ay ka mid ahayd inay hanteen kuraasta ugu badan ee dawladaha hoose ee dalka iyo inay soo galeen albaabada siyaasadda. duqa Burco waxa uu xuseenay haweenku aanay weli yihiin kuwa qatan balse sidan oo kale ay u midoobaan siday doorkooda siyaasadeed u qaadan lahaayeen. duqan Burco waxa uu natiijadan ay gaadheen ama guulahaasi ay ka gaadheen doorashooyinka uu sabab u ahayd ayuu yidhi xukuumadda jirta ee Somaliland oo uu xuseynaya albaabada u furtay inay dhalinyarada iyo haweenku ay saameyn ku yeeshadaha maamul ee hadda shaqaynaya iyo degmooyinka madaxda qaranka markaad aragto xukuumadda iyo golayaasheeda inay ugu badan tahay ejka dhalinyaranimada ama rag imika siyaasadda ku soo biro dhalinyaro waa dhiirigelin xukuumaddan hadda jirta ay dhiirigelinayso dhalinyarada. xariir diriya oo ah maamulka hay'adda Hafayoko ee magaalada Burco oo isaguna maanta kulankaasi ka hadlayay ayaa waxa uu sheegay inay kulamadan ay salka ku hayaan barnaamijyo loogu doodayo dhalinyarada iyo haweenka xuquuqdooda siyaasadeed kaasi oo lagaga qayb qaatay doorashadii deegaanada ee la soo dhaafay. waxaan uu maamulahan xuseynay laga goleeyahay in kor loogu qaado hanka siyaasadeed ee bulshadani si ay isbedel uga samayso ka qayb qaadashada siyaasadda. kulankan ayaa waxa uu daba socdaa barnaamijyo xiriir ah oo lagu taageerayo haweenka iyo dhalinyarada oo horey looga qabtay magaalada Burco kuwaasi oo ku saabsanaa sidii loogu dhiirigelin lahaa inay ka qayb qaataan doorashooyinka siyaasiga. Yuusuf Ibraahim Warsame, TV-ga qaranka, Burco.